haddii aad doonaysid maalintaada inay noqoto maalin barakeysan oo ilaahay uu ku barakeeyo saddexdan shay samee waxaan doonayaa muuqaalkan intaan u gudagalin inaan ka codsado videogan laag inaan noo saarto si dad badan u gaaro marka soo dhawaada qodobka koowaad ugu muhiimsan ee anigu mar walba aan sameeyo waxaa weeye in habeenkii intaanad seexan aad sii qorshaysato maalinta soo socota waxyaabaha qaban doontid like qasama inaad talaab iyo saacad waxa qaban doontid inaad sheegtid laakiin inaad sii qorshaysato waxyaabaha ugu muhiimsan ee qaban doontid qaasatan suuxii hore hurdada markaa ka kacaysa xilli hore waxa kugu horeeya qaban doontid tan waxay ka dhigaysaa in soo kicitaankaaga soo kacda adigoo firfircoon lagada tusaale ahaan idin siiyo marka haddii lacala safar u baxayso kala ama britola diyaarada ku qoran tahay raacdo habeenkaas haddii aad seexato saddexda habeenimo subaxii adigoo fresh ba soo kacaysa oo alarm xataa ma u baahnid marka taas waxay ka dhigan tahay qofka haddii uu qorshe sii yeesho oo maalinta ka horeysa ama habeenkii uu sii qorshaysto beri wuxuu qaban doono waxay kor u qaadaysaa jaaniska hurdada uu xilli hore ugu toosay isagoo fresh ah oo aan isqasbin marka habeenkii intaana seexan qorshaysan maalintaada waxaa qaban doontid qaasatan waxyaabaha ugu muhiimsan marka ay ku yaala ee britol si aa usii firfircoonaato oo marka ugu sii tashato qodobka labaad isagana muhiimka waxaa weeye si maalintaada uga soo kacdo subaxii adigoo fresh ah kadibna ay kuu noqoto maalin ay habi tahay soo maalintaada soo kicitaanka hore haddii kaa xumaado oo adigoo madaxa ku xanuunayo oo kala kacsanaya soo kacid maalintaas oo dhan waxaa laga inay kaa xumaato si marka maalintaada ay kugu barakooday u noqoto maalin qurux badan habeenkii isku day inaad xilli hore seexato isku day xilliga hurdada ka toosi doonto in 8 saac ka hor sii seexato ama ugu yaraan 6 saacadood inaad sii seexato tan waxay keenaysaa dhawaado fresh oo hurdada ka dhagina soo kacid maalintaada inay kuu noqoto maalin qurux badan oo barakeysan qodobka ugu dambeeya ee ugu muhiimsan isagana waxaa weeye si maalintaadu ay u noqoto maalin barakeysan oo wanaag kuugu bilaawata isku day hurdada inaad ka kacdo xilli hore salaada subax jamaca kusoo tukato ama salaada subax waqtigeeda ku tukato taas waxay keenaysaa hadhow in aad maalintaada oo dhan faraxsanaato kaliya dareenkan waxaa arki kara dadka salaada subax masaajidka ku tukada ama xilligeeda tukada marka isku day si maalintaada oo dhan like 40 saac soo socday ku noqdaan 40 saacadood aad ku nafisto oo ku barakoodo oo wax badan aad u qabato maalintaada ku bilow activity-ga ugu wanaagsan ee qaban kartid oo ah in salaada waqtigeeda tukato muuqaalkan halkaas buu ku egyahay haddii muuqaalkan ka heshay waxaan ka codsanayaa videogan like inaan noo saarto channelkeena ama Facebook page-keena ku soo birto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.